kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan kusoo koobi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee suuqa cryptocurrencies, akhbaarta uu suuqa sugayo, sababta hoos u dhaca ugu weyn ugu wacan iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin koonanka ugu waaweyn cryptada xilligan. Suuqa lacagaha digitalka ah ee cryptocurrency waxa uu wajahayaa hoos u dhac guud iyadoo Bitcoin ay hoos uga dhacday 113,000 halka Ethereum-na uu ku dhow yahay $4,100. sidoo kale XRP ayaa hoos u dhacay isagoo gaaray wax ka yar $2.80 taas oo ka dhigan inuu hoos u dhacay wax ka badan 15% tan iyo markii Ripple iyo SEC ay la kala laabteen dacwadihii dhinaca racfaanka ahaa. hoos u dhaca suuqa ayaa waxa uu sabab ah walaaca sii kordhaya ee ku saabsan siyaasadda lacagta digitalka ah ee dowladda Mareykanka, gaar ahaan ka hor hadalka la filayo in uu jeediyo gudoomiyaha Federal Reserve-ka ninka loo yaqaano Powell oo la filayo inuu jeediyo hadal weyn oo suuqyadu ay ka warsugayaan. Suuqyada ayaa sidoo kale waxa ay la tacaalayaan saameynta sicir bararka sare taas oo hoos u dhigtay rajada ah in la yareeyo heerka dulsaarka ee bisha September. Suuqyada guud ee cryptocurrency waxa ay hoos u dhaceen wax ka badan 1.1% halkii saac ee ugu dambeeyay, iyadoo 92 ka mid ah boqolka lacagood ee ugu sareeyana ay muujinayaan hoos u dhac weyn. Xaaladda ayaa sidoo kale waxa ay saameyn ku yeelatay suuqyada saamiyada, iyadoo sidoo kale suuqyada Nasdaq ay ka mid yihiin ay hoos u dhaceen wax ka badan 1.5%, iyadoo maalgashadayaashu ay ka fogaanayaan lacagaha halista leh ee digitalka ah ka hor warbixinta siyaasadda lacagta ee Fed. Sida ay muujinayso xogtaan ka soo xignay Cointelegraph, waxa hoos u dhac weyn uu ku yimid lacagaha kale marka la eego Dogecoin iyo Cardano, kuwaas oo la kulmay hoos u dhici ugu weyn abid. Maalgashadayaashu waxa ay si dhow ula socdaan hadalka Powell iyo sidoo kale warbixinta Fed si ay u fahmaan jihada mustaqbalka suuqa cryptocurrencies. wararkaas ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa uguna dambeeyay suuqyada cryptocurrencies. mar walba la soco Omaya Exchange si aad u heshid macluumaad ku saabsan suuqyada crypto iyo forex, zone flow garee ciwaanada kala duwan aynu ku leenahay baraheena bulshada.